السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hadal TV toddobaadkii maalmaha ka mid ah naga daawatan waliba waxa waxaan daafac caalamka digahayno waxaan idin soo jeedinaa Xuseen Sheekh Daahira madaxweynaha Jubilee Soomaaliland ayaa ku sugan dalka Kenya magaalada Nairobi halkaas uu kula kulmay madaxweynaha dhigiisa dalka Kenya dhinaca kale madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore ku tagay dalka Djibouti safar u geeska Afrika kala bixinay kaas uu ku raadinay inuu ictiraaf kaga helo dalka Jaarka dhinaca kale madaxda wadashada Soomaaliya ayaa soo jeedisay inaan Xasan Sheekh madaxweynaha Jubilee Soomaaliya federaalka weeyane in la jiro siin wixii lagu ballamay uu gees ka turay balse uu qardo dub ku wado doorasho cad iyo hal qofa dhalinyaradii laga sii daayay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland sidii Puntland ayaa ku sugan magaaladaas cad kuwaas oo sheegay inay ka codsanayaan maamulka Khaatumo iyo odayaasha cuqaashaba in la sii daayo maxaabiista ku xiran si ay helaan iyaguna dhigooda ku xiran magaalada Hargeysa dhinaca kale dowlad deegaanka Soomaalida iyo ONLF ayaa la sheegay inay dib u kala faagteen kaasi hore looga heshiiyay dowladda federaalka Itoobiya oo hogaaminaya mudane Abiy inay heshiis tageen balse ay sheegeen heshiiskooda qaar laga baxay mudane Cabshir ayaa ku sugan dalka Kenya kaasoo nabadayn ka raadinay bulshada dhexdeeda halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha ka mid ah halka daawataan caalamka iyo Soomaalidaba madaxweynaha Jubilee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Abdullaahi Cirre ayaa ku sugan Nairobi isagoo wafdi ballaaran oo hogaaminayo halkaas uu kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya iyo bulshada Kenyaanka aba dhinaca kale oo la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda ka cabsanayo inay ictiraafaan halkaas uu madal loo dheeyahay beesha caalamka oo isla darhaatole kula kulmay magaalada Nairobi ee madaxda dalka Kenya madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyay maalintii shalay ahayd fagaaro loo dheeyahay oo kaasoo isku yimaadeen dhammaan jaaliyada Soomaaliland ee ku lugan iyo dad kale oo ajaanib ah oo ku sugan dalka Kenya professorin iyo maxay culimo iyo dad indhagarada dhinaca kale safaaradaha ayaa iyaguna kulan gaar ah loo yeeshay kuwaas oo u gudbiyay inuu aanu doonayn waxba yaraatee qaaraan loo soo ururiyo iyo meel laga taaray balse uu doonayo inuu daafaca in Soomaaliland ay ka mid noqoto qaramada midoobay si ugu helayeen member taasoo ku xiran tahay in marka hore sharci ictiraaf Soomaaliland ayaa 1919 laga dhawaaqay magaalada Burco taasi ku laga joogo muddo 4 sano ugu celinaysa in adduunka la dhexso ujeedadeeda balse markii hore Soomaaliland ayaa ahayd kuwayagu dhinacna Soomaaliya garab ku haya dhinacna ay daafac caalamka wax ka doonayeen balse hadda ay sheegeen inaanay cidna wax uga maareen balse ay gacmahooda isku tireen madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweynihii lixaad ay ku galasho doorashada kaasoo markay loo yimaado midnimada qaranka Jubilee Soomaaliland ay ka mideysay maxkamada daafaca caalamka joogan balse ay jirto markii gudaha jooga la saxana kadinayo doorashada lagu tartamayo iyahana geeska Afrika wadanka ugu madaxweyne doorasho lagu soo baxay ay koob nabadna ay koob yihiin dhinaca kale Mareykanka ayaa dadka qaar sheegayaan inuu ictiraaf looga raadinayo Jubilee Soomaaliland halkaas ku sameeyay madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigeenkii hore mudane Cabdiraxmaan Selici oo 8 fagaaraha ka qayb galay 18 May ayaa iyadoo haatan bishii May ugu hadalhaynta badnayd sanad ka dambeeyo dabaaldegyo kaasoo sanad ka dambeeya oo daafaca caalamka sida Yurub, America, Canada, Africa iyo inta Soomaalidu degtaba laga xusay 18 May ayaa sanadka waxa ku cusub in madaxweyne ku-xigeenkii hore mudane Cabdiraxmaan Abdullaahi Selici uu ku sameeyay yahay Mareykanka kaasoo ka qayb galay dad badan oo caalamka ka yimi iyo fagaaro aad iyo aad loo soo qurxina oo ka qayb galay dhinaca madaxweynaha Jubilee Soomaaliland ee jooga magaalada Kenya ayaa la kulmay jaaliyada Soomaaliland taasoo khudbad xasaasi ah aad iyo aad dadku ay soo dhaweeyeen u jeediyay taasoo sheegay inay muddo 200 sano ku noolaayeen balse ay qalbiga ku hayeen wadankoodii kana yihiin baarlamaan iyo senator iyo ganacsato iyo siyaasiyiin iyo dhinac kastaba ay kaalintooda ka jiraan inay yihiin Kenya haatan nalada balse ay ku hayaan inay Soomaaliland marka hore ka yimaadeen Soomaaliland iyo dalka Kenya ayaa labaduba maxkamiyadii Britain kaasoo waqti hore u gumaysan jiray balse madowba dhinaceeda ay haysay halkaas Soomaaliland iyadoo ay la midowday Soomaaliya dhinaca kale dhalinyaradii laga sii daayay magaalada Hargeysa ee Puntland ayaa yimi magaaladaas cad kuwaasoo sheegay inay raadinayaan in maxaabiistii dhigooda ay helaan kuwaas ay ku xiran tahay in laga sii daayo maxaabiista magaaladaas cad madal loo wada yahay oo ay ku sugan cuqaasha iyo garaadada gobolka Sool ay mid kastaba ka jeediyeen inaanay sharaf ahayn maadaama iyaga la sii daayay in kuwa kale ay ku xirnaadaan magaalada Hargeysa ama jeelka Badheeraba balse ay jecel yihiin
maadaama aanay jirin iminka cid iyaga dagaal gaara ku haysa nimankana ay ahaayeen niman ay dagaal isku hor yimaadeen balse lagu kala qabsaday haatana gobolka sool aan ku sugnayn in la sii daayo ragga halkan ku jira si ay helaan iyaguna dhigooda. halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha ka mid ah aan naga daawataan. dhinaca kale dowladda federaalka iyo madasha qaran ayaa isku maanlaafsan qaabka doorashadu ay u dhacayso, kuwaasoo siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore xasan sheekh iyo siyaasiyiin kale oo ra'iisul wasaarihii hore mudane barre waxay sheegeen in loo baahan yahay madasha qaranku inay gogol laysu fidiyo taasoo laga tashanayo aayaha Soomaaliya iyo qaabka doorashada hal qof cad loo helayo, balse xasan sheekh cid isaga kula tartamaysa hal xisbi ka dhigay dalkii hal doorashada uu rabo keligii inuu kursiga ugu shubto, balse aan ahayn mid bulshada halkaas sheegeen inay Puntland maqan tahay, Somaliland hore u tagtay, haatana Jubbaland aanay ku jirin saxiixa. si kastoo haataba Soomaaliya ayaa mar xilliga doorashada la isku jaafaajirqa ama se la iskaga hor yimaada waliba ay gaadho qori caaradii xilliga farmaajo ayaa madashii ka horeysay ay ahayd tii qori caaradii daqalaha ku sigatay, walow uu ka tanaasulay dhammaanba wixii markaa uu doonayay farmaajo, kaasoo dib loogu laabtay teendadii. hadda weli ma cadda in teendadii dib loogu laaban doono iyo in mar kale madashada qaranka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Sheekh iyo baarlamaanka iska iman doonaan iyo goboleedku dabeetana ay isla hindisi doonaan sidii loo sameeyaa commission iyo maxkamad loo noqdo, taana lagu galo doorasho loo dhan yahay lana samaysto xisbiyo dhaqan gala. halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha ka mid ah aan naga daawato. waxaan aad iyo aad uga xusuusanaynaa inaan soo raacdaan xag hoosa wixii wari wacala nooga ahaysan qortaan. dhinaca kale kilka shanaad ee Soomaaliya madaxweynaha Cagshar ayaa ka degay dalka Kenya halkaas uu ku raadinayo in ONLF oo muddo 100 sano ku dhow ama 8 sanadka qaar ku yaasan ka dagaalamaysay dowlad deegaanka Soomaalida kilka shanaad ama ay doonayeen in iyagu noqdaan kuwa authority balse markii dambe la heshiiyay dowladda Itoobiya. heshiiskaas ayaa ONLF ku heshay inay dowlad deegaanka Soomaalidu ka ahayn dhex ama aanay ka ahayn kuwa ka tirjumaya, balse ay ahaayeen kuwa dowladda la safan, heshiiskooduna burburiyay. ciidamadii ONLF ayaa ka mid noqday dowladda federaalka ee Itoobiya, kuwaasoo laga dhigay hubka dhigis iyo buqaanaha ku bilan booliiska militariga. haatana ONLF aanay wax militariga gacanta ku haysan jirin, balse heshiiskii qolada kalena ay leedahay annagu waxaan doonaynaa dimuqraadiyad iyo inaynu xisbi noqono, kaasoo la doonayo inaynu ku gaarno ajandaheena. si kastoo haataba waxay wararku nagu soo gaarayaan si ay kasii gudoomiyaha ONLF ama Cagshar ay ka waramayaan inaan weli is-afgaradkii xilligaasi loo gogolgin lana gaarsiin heerkii uu doonayay. dowladda federaalka Itoobiya ayaa ku qanacsan heshiiskaasi, sida ay sheegeen madaxweynuhu uu ka sheegay TV-yada caalamka inay ku niyadsan yihiin in heshiis dhaco lana mideeyo bulshada Soomaaliyeed, kaasoo loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo wanaagga ay leedahay dowladda federaalka ee Itoobiya. si kastoo eegtaba weli ma jirto madal labaad la isku salaabtay, balse dadka qaar ayaa rajeynaya in dib la isku salaabto oo la xirna wixii ka qaldan dib loo saxo, balse dagaal labaad dalka aan lagu celin ee horumarka lagu dadaalo. magacay waa Xasan Sheekh Daahir. wixii wari wacala diyaarnayn intaas ku dhanyahay wixii dib u soo kordha gadaal baan idin sheegi doonaa. nabad qab iyo nolol koonte. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.